bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka idaacadda kulan duhurkan kuwood ugu door karoon waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidanka dawladda oo qof rayd ah ku dilay magaalada Jowhar 8 qodobo oo xildhibaanada golaha shacabka diidan yihiin xukuumadda ra'iisul wasaare Khayre dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool wasiirkii hore ee arrimaha gudaha maamulka Khartoum oo ku geeriyooday dalka Itoobiya maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo xubnihii ka socday AU ee ku shiray magaalada Kismaayo doomiye Cali Gacal Casir oo baaq u diray xildhibaanada Galmudug taliyihii ilaalada madaxtooyada oo xilka laga qaaday iyo taliye cusub oo la magacaabay wararka dibadda kulan duhurkan idinaysa waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay inuu hogaamiye ka tirsan Al-Qaacida ku dilay wadanka Afghanistan iyo qaramada midoobay oo sheegtay in dagaalka Yemen ay bil waliba ku geeriyoodaan 100 qof oo rayd ah waa maalinimo axad ah taariikhduna ay ku beegan tahay 26 bisha 3 sanadka 2017 intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu door karona haatanna ku soo dhawaada asagoo fidsan warka waxaa soo saaray Cabdi Fataax Siido Cusmaan waxa idin la socodsiin doono anigoo Qaasim Maxamed Xasan askari ka tirsan ciidanka dawladda oo qof rayd ah ku dilay magaalada Jowhar wararka ka imaanayo magaalada Jowhar ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada dawladda uu halkaasi ku dilay qof rayd ah isla markaana uu dhaawacay gabar marxuumka la dhalatay dhacdadani ayaa sida uu sheegayo wariye ka tirsan idaacadda Kulan Network ee magaaladaasi Jowhar waxa ay ka dhalatay muran maalmo socday oo dhaxmaray labada nin murankan oo la xiriiray guri ayaa natiijadiisa waxay noqotay in askariga uu dilo ninkii raydka ahaa uuna garabka ka dhaawaco walaashiisa maahan markii ugu horeysay oo ciidamada dawladda ay qof rayd ah ku dilaan magaalada Jowhar sanadkii hore 2 wiil ayaa lagu dilay magaalada Jowhar sanadkii 2015kiina waxaa suuqa lagu dhex dilay nin rayd ahaa dhammaan dilalkaasi cidna looma qaban oo waa qaar baxsaday iyo qaar kale oo beelo soo dhaxgaleen gudoomiye Cali Gacal Casir oo baaq u diray xildhibaanada Galmudug gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ugu baaqay xildhibaanada baarlamaankaasi ee ka maqnaa magaalada Cadaado in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku gaaraan magaaladaasi waxa uu sheegay gudoomiyaha maadaama ay soo dhowdahay doorashada madaxweynaha Galmudug in dhammaan xildhibaanada laga doonayo inay ka qayb qaataan doorashadaasi ayna soo gaaraan Cadaado waxaan halkaani ugu baaqayaa xildhibaanada goboleedka Galmudug wixii maqan in si degdeg ah ku soo xaroodaan si ay ugu qayb galaan doorashada dhici doonto 10 bishan Abriil ayuu yiri gudoomiye Casir sidoo kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii watay ayaa ugu baaqay dhammaan musharaxiinta doonaysa inay ka qayb galaan doorashada madaxweynaha Galmudug inay isdiyaariyaan baarlamaanka Galmudug ayaa sabtidii shalay isku raacay in doorashada madaxweyne ee maamulkaasi ay dhici doonto 10 bisha Abriil ee sanadkani haddaan ku guda jirno 2017 halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda Kulan ee magaalada Muqdisho haatanna akhbaaradka caalamka warkii aad kala socoteen idaacadda Kulan Network waa naga inta warka waxaa soo saaray Cabdi Fataax Siido Cusmaan waxa idin la socodsiinaya anigoo Qaasim Maxamed Xasan haatanna dib idinkugu celiyo farsamayaqaanka jacaylkani taaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa madaysin nasteexadiiso adoo qaban nabaaradiisa jacaylkani taaqadiisa qofaadu nugushahay xaggiisa madaysin nasteexadiiso marada sinniya jabkiisa naftaadana waad ku soortay waxaad nacab tahay dhibtiisa marada sinniya jabkiisa